Asalaamu calaykum kusoo dhawaada janalka saadaasha dunida. Waxaa maanta inta ka soo jeedin doona waa kuma shanta wariye ugu saameynta badan dunida ku noolnahay. Kow Walter Cronkite wuxuu ahaa suxufi hore isla markaana u fadhiyay tifatiraha maareynta bandhiga CBS ee Evening News. Wuxuu ahaa suxufi hore isla markaana ahaa tifatiraha maareynta bandhiga CBS Evening News. Wuxuuna ahaa wariye u shaqeeyay United Press intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka. Wariyaha wuxuu aad caan ugu ahaa dacwadaha Jarmalka. Kadib markii uu ku biiray CBS, wuxuuna soo bandhigay dilkii John Kennedy, dagaalkii ka dhanka ahaa xuquuqda madaniga. Wuxuuna dhintay sanadkii 2009 isagoo da'diisu ahayd 92 jir. Veronica Guerin 5 Luulyo 1958 ilaa 26 Juun 1996 waxay ahayd hal wariye dambi baaris Irish ah oo ay dileen kuwa daroogada ka ganacsada. Waxay ku dhalatay Dublin, waxay noqotay wariye 1990 oo wax ku qortay Sunday Business Report iyo Sunday Tribune. Sanadkii 1994 waxay bilowday inay wax ka qorto dambiyada ee Axadda. Sanadkii 1996 ayaa si xun loo toogtay iyada oo lagu joojiyay nalka taraafikada. Kate Adai waxay dhashatay 19 Sebtembar 1945 oo loo yaqaan Kate Adai. Waa wariye Ingiriis ah waxayna ahayd madaxa warfaafinta BBC-da intii u dhaxaysay 1989 ilaa 2003. Xilligaas oo ka soo warbixisay aagaga dagaalka adduunka, waxayna ka fadhiisatay BBC-da horaantii 2003. Hu Shole waxay ku dhalatay magaalada Beijing, dalka China. Asalkeedu waxay ka soo jeedaa saxafiyiin caan ah. Awowgeed Hu Junjun wuxuu ahaa turjumaan caan ah, sidoo kalena wuxuu tafatiro ka ahaa Shenboi, waxayna ka mid ahayd suxufiyiinta u saameynta badan ee soo mara dunidan. Fadlan haddaad ku cusub tahay janalkan, subscribe saar, gambalaalkana saaro si kugu soo dhacaan